jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Ohio iyo waxay si diiran u soo dhaweeyeen Ambassador Salaad Cali Jeelle. Xafladani lagu soo dhaweynayay Ambassador Salaad Cali Jeelle ayaa waxaa soo qaban qaabisay ururka SABC Somali American Political Action Committee oo ah urur alaaba ka shaqeeya danaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka. Xafladda soo dhaweynta Ambassador Salaad Cali Jeelle waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin, aqoon-yahano, oday dhaqameedyo iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Ohio. waxaan halkaan ku soo dhaweynaynaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka walaalaha aan nahay ee Jamhuuriyadda Djibouti, Ambassador Salaad Cali Jeelle. Salaad Cali Jeelle safiir ahaan ka sokow siyaasi hore, gudoomiye xisbi siyaasadeed, wasiir hore, nin shaqo badan dalkan ka soo qabtay. farxad ay noo tahay in magaalada Columbus Ohio aan ku soo dhaweyno ambassador aniga oo ku hadlaaya magaca organization-ka soo abaabulay xafladan quruxda badan ee SABC iyo dhammaan magaca jaaliyadda Columbus Ohio ee Soomaaliyeed. waxaan ku leeyahay ku soo dhawow magaalada Columbus. midnimada walaalayaal waa arrin weyn oo aas-aas u ah nolosha aadanaha. wanaag kasta iyo khayr kasta iyo qiimo kasta oo la gaarana iyada unbaa hormuud u ah laguna gaaraa. inaan markaan u yeero Cabdirasaaq Sheekh Cali waa madaxweynaha barnaamijkan urur siyaasadeedka soo abaabulay ee Somali American Political Action SABC. waxaan rabaa inaan Cabdirasaaq ku soo dhaweeyo furitaanka xafladda. waa mahadsantihiin. السلام عليكم. marka koobaad ilaahay baa mahad iskale caawa halkan iskugu keenay. marka labaad waxaan idinkaga cudur daaraynaa dib u dhaca xagga waqtiga ku yimaaday. marka saddexaad waxaan jeclaan lahaa aniga oo ku hadlaya magaca SABC oo ah organization u taagan in sidii dadka Soomaaliyeed ay qayb uga noqon lahaayeen siyaasadda dalkani, gaar ahaan gobolkani Ohio iyo gobolada kale ee dalka Mareykanka, inaan gacmo furan ku soo dhaweyno safiirkayaga Soomaaliya u jooga dalka Djibouti, Ambassador Salaad Cali Jeelle. Ambassador ku soo dhawow magaalada Columbus ee gobolka Ohio. marka labaadna sidii aanu horeyba ugu wada hadlaynay waxaa muuqata caawa sidii aanu filaynay iyo si ka wanaagsan. waana ogeyn mar waliba inay dhacayso in hool buuxin kara inuusan jirin dadka Soomaaliyeed ee danaynaya Ambassador Salaad Cali Jeelle. intaa marka laga tago aad baan idinkaga mahadcelinaynaa waqtigeena qaaliga. waxaan si gaara weliba jeclaan lahaa inaan ugu mahadceliyo dhalinyaradii gabdhaha iyo wiilasha lahaa ee hawshan iyadaa kasoo qayb qaatay. xafladan quruxda badanna caawa noo dhigay, ayagana aad baan uga mahadcelinaynaa waqtigooda iyo xoogooda iyo caqligooda ee ay ku bixiyeen sidii hawshan u noqon lahayd mid miro dhasha. intaa marka laga gudbo ma jeclo waqti dheer inaan sii qaato waayo already haddeertaan baa xoogaa dib u dhacnay. waxaan jeclaan lahay oo keliya in dadka halkaani noogu casuuman ee noo fadhiya ee hadallada leh inay fadlan waqtiga ilaaliyaan, ayna ku xisaabtamaan inaan already xagga waqtiga dibdhac jiro. sidoo kaleetana hadda intaanu fadhino insha allah in qofkii awoodaba oo cashada maadaama ay afee tahay uu soo qaato si anaga hawshanada iyo cashada labadaba aan isugu wadno. aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa waqtigeyna. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay mar labaad Ambassador Salaad Cali Jeelle ku soo dhawow Columbus Ohio. waa magaalo dadka Soomaaliyeed ee ku nooli ay dowladnimada jecel yihiin, waxayna ka muuqataa caawa halkani. waxaana filayaa insha Allah Djibouti iyo Soomaaliya iyo meelaha kale aad tegi doonto oo markaad ku laabato inaad ka turjumi doonto sida dadka Soomaaliyeed ee magaaladani ku nool
ay u yihiin dowlad ku nool iyo dowlad jecel intaba aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum calaykum salaam aad iyo aad u mahadsantahay cabdishaaq guddoomiyaha saabeg haddana waxaan rabaa inaan guda galo dhinaca marti sharafta kale ee noo joogta waxaan u yeerayaa guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Columbus Ohio xasan cumar xasan dheere xasano waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa ilaahay isu keenay waxaan aaminsanahay inay tahay arrin ilaahay in halka isugu nimaadno caaway oo aan soo dhaweyno Salaad Cali Jeelle waxaan una mahadnaqayaa marka ugu horeysa runtii waan dhihi karaa dad dhalinyaro Soomaaliyeed oo ayagu casumay Saaba kuna casumay Columbus isna xilqaamay iyagoo u arkay inuu ka mid yahay dadka qiimaha leh adduunka oo dhan waynu ognahay marka xaflad la qabanayo ama shir la qabanayo dad baa la casumaa oo speakerisa dadkaas oo loo arko inay dad qiimo leh sidaa daraaddeed cali dhalinyarada casuumta aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan rabaa halkan inaan uga yeero cabdiqayr soofe cabdiqayr waa xiriyaha arrimaha bulshada ee magaalada Columbus Ohio cabdiqayr soo dhawow aad baan ugu faraxsanahay munaasabadan isku duwaha xiriirka munaasabadan walaalihii soo qabanqaabiye aad bay u mahadsan yihiin waxaad arkaysaan odayaashii iyo aqoon-yahanadii iyo ganacsadayaashii inaan loo kala harin waana miisaanka ustaad ambassador Jeelle uu ku leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba marka waxaan ku bilaabayaa waxaan dhaqdhaqaaqna uu socdaa waxaan arkayaa cashadii baa la dooranayaa bal inaad iga daba tiraahdaan erayadan soo socda oo nidhaahno Jeelle Jaale soo dhawow Jeelle Jaale jaaliyadda ku soo dhawow laakiin waxaan rabaa soo dhaweynta aan Salaad Cali Jeelle soo dhaweynayno inay wax badan uga duwan tahay dad badan aan soo dhaweyn jirnay dadku waa siyaasiyiin xilal bay wada hayaan laakiin qofka miisaankiisa qalbigiisa Salaad Cali Jeelle waa Soomaali clean heartiya oo runta abaara ka hadla waa qof dalka iyo dadka wax ugu yaala waa qof midnimada iyo Soomaalinimada wax ugu yaala waa qof caqiidada iyo diinta iyo islaamnimada wax ugu yaala qofka wax ugu yaala marka islaamnimada wax ugu yaala midnimada wax ugu yaala Soomaalinimada wax ugu yaala dalka iyo dadka wax ugu yaala waa inuu qofka Soomaalinimada qiimo gaar u lahaado Ambassador Salaad oo soo dhaweynaya sidii dadkii iga horeeyay oo hadlay magaalada Columbus Ohio waxay aad ugu tilmaaman tahay jaaliyad Soomaalinimada jecel oo qarannimada jecel oo madaxda qaranka si aan discrimination ahayn u soo dhaweeya oo kulligood jecel oo qof kasta oo Soomaalinimadu macnaha ugu fadhida garanaya jaaliyad aad iyo aad u dulqaad badan aniga oo ku hadlaayo magaca odayaasha dhaqanka jaaliyadda Columbus Ohio iyo kaygaba waxaan idinka codsanayaa inaad ila soo dhaweysaan nin qiimo iyo qaayo ku leh qaranka Soomaaliya dhaxdiisa iyo shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaanba kana mid ah wakiilada dowladaha adduunka u fadhiya qaranka Soomaaliya Salaad Cali Jeelle waqtigu waa gaaban yahay uma baahni inaan muddo sii tiriyo dad badan baa hadlay marka ambassador welcome aad iyo aad baa u mahadsantahay caawa waa iska maxabaysannahay waxaan soo dhaweynaynaa safiirkeena Salaad Cali Jeelle mudana Salaad soo dhawaaw Columbus Ohio ku soo dhawaaw Soomaali ku jecel
wada dhan kusoo dhawow ayaan ku leeyahay anigu aqoon dheeraada baan salaad ku leeyahay waxaan marayaa dadku markaa idhaahdo aqoon dheeraada waxay eegayaan da' weyn iyo waxay leeyihiin warlinku waa la yaryahay aqoonna waa sheegayaa see wax u qaldan yihiin salaad anigu TFG baan walahay way soo xukumay salaad qaranku hadduu qof ahaan lahaa isaga ahaan lahaa qaranka maanta halkan dheer baanu soo wada gallay aan ka wada bilownay jowhar baydhabo muqdisho maantay waxa la maalayo ee la dhaxlay salaad dadkii urubdhiga u ahaa ee laga dhaxlay buu ka mid yahay salaad cali jeelle caawa aad baan ugu mahadinayaa shakhsiyad horta salaad waxaad kulmisay rag aan xalfadlaha iskugu imaan jirin oo mucaarad iyo muxaafid isku ahaa 5 sano u dambeysay horta taas waa kaaga mahad celinaya waxaan kaloo rabaa inaan xuso salaad waxa uu taagan yahay waa qarandoon nidaamku la jirayna qarannimo kula jiray aniguna nidaamkii aan muddo mucaaradka la igu tirinaya inaan ahaa ruuxaygu qarandoon baan ahaa oo sida safiirku ugu bareeray nin ay isku jifa yihiin intuu ka tagay inuu taageero qarannimo doono anigana waxa la igu xaglinaya ee ahayd ilaa waynu xagga ognahay magaaladana taageeradii aan u fidinayay sidaan u arkayay qaranka in loo dhiso horta salaad arrimahaas horta waynu wadaagnaa waxaana rabaa inaan kuu sheego dadka halkaan fadhiyaa waan hubaa inay dowladda rabaan waan hubaa inay tii horena rabeen adigana waxa ay kuu soo dhaweynayaan meeshaad ka soo jeeday jecel yihiin adna waxaan ogahay inaad jeceshahay meesha ay ka soo jeedaan loogu sameeyo basharku waa horumaray taqadum badan baa la sameeyey annagu wax badan baana dahashaday oo maartay dib noo dhigay waxaan rabaa inaan tilmaamo ilaahay aayadiisii quraanka uu ku leeyahay inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ilaahay qowma dooriyo jiray naftoodii dooriyaan haddii khalad naga dhacay uu yahayna inaan isu tilmaano oo aan idhaahno tan alla ilaahu waa naga dhacday aan ka qoomamayno aan ka toobad keenno taas un baan dhihi lahaa haddii ilaahay raalli ka dhigo waad ku mahadsan tihiin safiirkana waxaan leeyahay safiir soo dhawow haddii ammaantaadii waa la sheegay waxaan rabaa insha allahu tacaala faanoli fare kama qodna waxaan leeyahay inta kale oo dhan soomaali midnimadeedii insha allah waxaan tilmaamaynaa inaan wada qaadano jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waxaan rabaa inaan u yeero nin ganacsada ah cabdi xasan miir soo dhawow أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeyn waxaan salaamayaa ambassador Salaad Cali Jeelle senator Cabdirasaaq Xareed iyo dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay caawa xafladan runtii oo ma istaagin hadal badan in balaaqa badanna ma ahi waxaase aan ka fursan waayay maadaama la yiri wuxuu ka dhigay maadaama la yeeray bay qasab ugu noqotay inaan laba hadal ka dhaho marka marti sharafta mar labaad waa salaamayaa dhammaantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awalan ilaahay baa mahadlay halkan isugu kaaya keenay marka labaadna dhalinyaradii soo abaabushay ayaa mahadlay aad baan idiin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaad cali jeelle soo dhawow walaal qalbi furan ku soo dhawow Columbus ku soo dhawow waa dadkaagii dadka Columbus waxa weeye waa dadka dowladnimada u taagan markasta midnimada u taagan midnimadan jecelahay Soomaalimadan jecelahay dowladnimadan jecelahay sababta waxaan ku leeyahay soo dhawow jaaliyada Columbus Ohio qaybaheeda kala duwan waxaan u mahad celinayaa guddigii qabanqaabada saab oo waqti kooban xafladan quruxda badan ku qabanqaabiyay runtii waqtiga oo aad u yaraa iyo waxa ay qabteen difference-ga u dhaxeeya waad garan kartaan marka clubkaas ama teamkaas
waa u mahad celinayaa kulligeenna anu wada mahad celinno hawsha naga dhaxaysay oo ay noo fududeeyeen iyo sida quruxda iyo sharafta badan oo ay noogu agaasimeen mahad celin ka bacdi mawduuceennu ama subjectigeennu aan ku soconnay waxaa weeye soo dhoweynta ambaashadoorka Soomaaliya u fadhiya waddankaan saaxiibka nahay ama aan walaalaha nahay ee Djibouti mudane ambaashadoor Salaad Cali Jeelle senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya senator Cabdishaaq waa senator reer Columbus ah ganacsada ah sidoo kalena dadka bulshada aadka ugu muuqday oo kamid ahaa senator Solo بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan u mahad celinayaa dhalinyaradii soo abaabulay xafladda quruxda badan ee lagu soo dhaweynayo danjire Salaad Cali Jeelle runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan caawa hor imaado bulshada reer Columbus wajiyo fara badan macruuf ay ka muuqdaan دكتور خطر الشيرة كان جوكتا انجينير صفيو كان كهذا الشيء افريج عبد الواحد قدامي حسن لما سوى كوي بكرة ما شاء الله انت انا هذا موعد حسنا وحان كم بحنيار هالي قل رنتي حفلة وحايسكالة سفير كيسو دوينتيسة سفير صلاة علي جيelle وحان حسوستا maalinka ugu horreysay aan la kulmay waxay ahayd 18 January mar madaxweynihii dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku mareeyay socod dheer from Puntland to gobolada dhexe galmudug meel aynu istaagnay anaga habeenka ku hoyanay meesha la yiraahdo Guriceel subaxdii u soconay Balambal ayaanu meel istaagnay cabaar waqti u soo helay xilligaas fikirkii aaminsanaa ayuu ilaalintan aaminsan oo ah in dalka wuxuu hagaagaan halka dheer buu soo maray waa laga wada warqabaa waa laga soo sheekeeyay taariikhdiisii iyo waxa la yiraahdo hawlihii uu dalka u soo qabtay qofkuna wuxuu ku wanaagsan in lagu amaan lana xuso taariikhda meesha uu ka galay kulli dhimashadiisa kadib iyo waqtiga uu shaqada ka taargaroobo waa la xusi doonaa laakiin intuu nool yahay waxa wanaagsan oo si waa la sheegaa intaas kadib hadal badan ma soo istaagin oo xafladda waxa iska leh safiirka waxaan rabaa laba qodob inaan ka hadlo mid waa mid laga shaqeeyo arrimaha abaaraha ee dalkii ka taagan dalkii laba cadow ayaa isugu darsamay cadow waa cadowgii hore aan ogeyn oo dalka dhibaatada ku hayay waxa uu soo weheliyay colaadda abaaraha hadda jira waxaa kaloo jira in kacdoon uu ka jiro dalka hadda ay gobollo fara badan oo gobollada hadda dhexe ugu badnaadeen uu abaabul dagaal ka socdo Jubbooyinka iyo Jubbaland iyo meelo kale oo dadka nabadiidka ay fadhiyaan hawshaas ay bilaaban doonto reer Columbus iyo Soomaalida qurbaha joogta diaspora Soomaalida degan guud ahaan waxa laga rabaa inay taageeraan hawlaha dadaalka oo dawladdu wado dawladdan waa dawlad cusub waqti u baahan tahay laakiin annaga intayada systemka hadda ku jirto mas'uuliyadda dawladda ka mid ah waxaa naga go'an in systemka wax lagu daro mooye inuu si dib u laaban si taas loo sameeyana waxaan u baahanahay inaanu helo garab istaag ka yimaada bulshaweynta degan qurbaha ee Soomaaliyeed waxqabad weyn baad leedihiin waxaad leedihiin waxa la talooyin fara badan aqoon-yahanintii ganacsatadii qurbihii bay ku soo aruureen koorkii Soomaalida waxayna la nolol kaga baahan yahay marka haddii aanu nahay Soomaalida qurbaha degan inaynu qaybteeda ka qaadano aan mar walba ku xasuusano qof walba ee xadiiskii Nabiga sallallahu alayhi wasallam waa uu ku yiraahdo asxaabta 3 oo qori ayaa la rabaa asxaab soo istaagtay asigaas rasuulullah 3 oo badan oo walba uu yiraahdo waa kaadu ka adko haddii qof walba anaga inaga miduhu uu qaato responsibility-giisa wax badan baa qabsoomi kara dalkan uu qabsoomi kara
dalkuna wuxuu u baahan yahay in aynu inagu ka fakarno inteeda diasporaha qurbaha ku nool dad fara badan aan ka mid ahay yaa ka tagay qurbe sheerka mas'uuliyadda aniga saarana inaan bixiyo diyaar u ah qaar baa iga horeeyay qaar baa naftooda ku waayay qaar baa iga dambeyn doona inta adinka had intana halkaan fadhida iyo inta kale oo maqlaysa programkan waxaa muhiim ah in mar walba la xasuusnaado dalku waxa uu sugayo ma ahan inta gudaha joogtee contributionkiina waa idinka rabaa idinka qodobka kale rabo inaan ka hadlo waxa weeye dadka aan u baahannahay inaan recruit gareeno waa dadka aqoonta leh ganacsatada leh dalku employment ma lahan private sector ma jiro waxaad la yaabaysaan marka aad ogaato dalka gudihiisa number of students ka soo baxa jaamacadaha dalka ka dhisan ama neighboring countries ama ha noqoto Uganda ama Kenya ha noqoto ama Djibouti ha noqoto ama Ethiopia ha noqoto oo dalka ku soo laabta iyo sida ay shaqo la'aanta uga jirto dalka uga baxsan tahay wasaarad aan lahayn dhowr boqol oo qof attachment soo aan wax inaba hawlba ka taa dhaqaalaha ayna soo gelin ma jirto si marka loo helo private sector dadka diaspora qurbaha jooga oo fikirka wanaagsan hayo dalka ku sameyn kala maalgelinta waxa laga ka codsanaynaa inay shirkooda la yimaadaan oo dalka ay investment ku sameeyaan dadka aqoonta leh oo aqoontooda dalku ka faa'iideysan karo laftigooda waa loo baahan yahay waayo waxaan u baahanahay inaan wax kordhino wax sii zaadino inaan dib u laabano ma rabno waxaan uga baxayaa arrinta guud ee abaaraha hadda dalka ka jira arrintaas meel walba aan joogno waana isxasuusinaa isku baraarujinaa baahi badan baa jirta dadku way la'anayaan qof walba anaga naga midana markuu ka soo tago familiga asagu uu leeyahay ama mas'uuliyad ka saaran tahay waxa muhiim ah in uu yiraahdo hay'adaha qaariga jira lacag aruurinaya qof walba inuu wuxuu ku contribute garan karo ku contribute garayo ayaa muhiim ah waxaan uga baxo ambassador Salaad Cali Jeelle soo dhawow anu reer Columbus baan ahay marka qayb intaana ka mid ahay marka waxaan jeclahay inaan kugu soo dhaweeyo reer Columbus qayb ka ahay istaaga inaad istaagtaan baan soo dhaweysaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مركبوه الرئيس وحان آد السلام يا reer Columbus Ohio waa state la yiriye meesha dawlad goboleed lagama sheegaan marka waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaanka bacdi runtii walaalkay sanatarka hadde dawladda horta marka la joogo waa isaga hadda ma taqaanaa si toosa uga wakiila maxaa yeelay waa sharci dejintii aqalkii sanowna haddana siiya marka aad iyo aad u mahadsan yahay marka inuu igu soo dhaweeyo marka waxaa waaye waa hadli kartaa waana fasaxan tahay awood ayuu isii siiyey dhiirigelin maxaa yeelay markuu qofku diblomaasi yahay hadalka badan looma ogolo laakiin mar haddii asigu igu soo dhaweeyo marka waa dhiirana marka madaxda sharafta lehoo kala duwan oo isugu jira rag iyo haween xilalka aad haysiin iyo qiimaha aad leedihiin lama soo koobi karee kulligiin
cid kastaba darajada ay ku fadhido ayaan mataqaanaa mar labaad idinku salaamaa idinkoo aad u sharafsan waxaana idin leeyahay mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa aad iyo aad uga mahadnaqaynaa raggii dhallinyaradii akhyaartii waxgaradkii xafladan sharafta badan oo aad iyo aad u qiimo badan si oo degdega oo emergency ah inta u soo abaabulay raggan iyo gabdhahan sharafta badan oo halkan fadhiya halkan isugu keenay si ay ii soo dhaweeyaan aad iyo aadaan uga mahadnaqayaa maxaa yeelay wax la soo koobi kara maaha. hadda halkan runtii ujeeddada aan aniga u imiday safarkaygu wuxuu yahay dadkan qiimaha badan oo aan dhegta iska maqli jirnay oon isshinsa jirnay inaan soo barto waayo horta waxaa kooya barashadaasina waxay keenaysaa waxaan ka rabaa oo aan ka helayaa waayo aragnimo iyo mural sabood ayaan dalkii kula naqa doonaa. maxaa yeelay hadda dadkan waxaa la yidhi meeshan waxaa waayaa la yidhi America markay doorasho ka jirto meeha ciday raacda ay guuleystaan marka gobolkii guusha la yidhaa marka guushaas inaan la naqdaan rabo marka aad iyo aad ay muhiimad gaar ah u leedahay waana ku mahadsantihiin sida walaaltinimada leh oo dadnimada leh oo aad ii xurmayseen xurmo aanan lahayn aad idinku mataqaanaa aad isiiseen maxaa yeelay haddii aan waqti badan inaan idin siiyay aheeda laakiin si emergency in intaan oo waxgarada oo mumathaliina oo dadkii mataqaanaa ugu sharafta badnay oo waayo aragnimada iyo aqoonta ximbaarsanay inay cid kasta oo kamida ay halkan ku soo xaadirto iyagoo soomaaliyeysan oo midaysan oo sharfan runtii wax la ilaabi doono maahan aad iyo aadaan uga mahad celaa mar labaad iyo mar saddexaad. walaalaheen sharafta badan haddii aan marka dib u raacno Soomaaliya warbixinaad iga rabtiin ma ogti warbixintana hadda adduunku waa hal gool waayo waa aragteeno hal gobol waaye wax idinku seegan male laakiin shalaad ka timide xaa soo kordha waaye Soomaaliya horta taariikhdeeda haddaan dib yara u raacno waa tii aan annaga dimuqraadiyadda ugu horeyna Afrika oo madaxweynihii ugu horeeyay oo madaxweyne kale ku wareejiyay idoo Afrika markaas aynan taasoo kale aynan haysan oo wadamo badanna macallin u ahaynay oo ogtihiin sharafta karaamada aan caalamka ku leeyahay kadib marka madaxweynihii labaad markaan iska dilay ay horta naga hadlaw sideedana dowladnimo systemku hadduu hal mar cagaha oo cagihiisa ku istaago waxa waaye isaga cid kasta ka adag laakiin muhiimadu waa in la adkaysiyo markii meeshaas ay ka wareerto hadda xilliyadana waa ogtihiinoo Afrika waxay soo martay marxalada kala duwan xilligaas oo naga dhimaayana Allah u naxariistay ciidamada ayaa inqilaab samay jiray oo dawladaha Afrikaan la socon waqtigaas sida ka dhigay marka dawladii militariga ay qabsatay hadda waa ogtihiin awoodda iyo meesha aan gaarnay inaan annagu caawi jirnay dawlada Afrikaana
oo maanta iyagu meel fiican maraya inaan annagu macallimiin u ahayn oon annagu barbaari jirnay oo annagu aan iyaga tababar noo soo doono jireen oon annagu mataqaanaa u ahayn hormood Afrika. inteenaan aad arkaysiin ragga yaryar ma ogiye niman guul wada siyaad qaadin naguma jirin. marka guul wada siyaad aabihii garashada markaan dhehayay uga waa mideysnayne waxa saas awooddaas keenaya midnimo qaranay ahaada iyo dadka oo isku duuban. taasna waxay ka socotaa diinteena sharafta leh ayaa tilmaamaysa in la midoobo. sheekh yaa hore u sheegay laakiin haddii aan annaga hadda aan idinkaga warramo marka Soomaaliya maxaa yaala hadda xayaala hadii la yiraahdo maxaa ka jira 3 arrimo ka jirta inaan isla ogaanaa la rabaa 3daas annagayna maaray naga rabaa. mid waa qabiil, midna waxaa waaye diin, midna wadaniyad waaye. 3daas ideolojiyada mihi ka jirta wadanigaana u liita hadda. wadaniyada u awood yar hadda. qabiilka iyo diinta ayaa waxay yihiin waxa dadka lagu leeyahay oo dagaalku ka jiro. markaan fiirino diin aan ka bilaabaynaa ilaa waa midka ku samaysan ideolojiyada oo isagu mataqaanaa iimaanka la xiriira oo macnawiga oo dadku oonan dareemi karin. qabiilka si fiican loo fahmaa maxay reer hebelana markaad dhahdo la tacaarafuudi isla markii furdug soo dhahe. laakiin diinka marka la joogo dadku islana ma yaqaano nin walbana kitaab gaar ah oo wataa aan isu dhiganay isla fiirinina ka yeelima kiisaaj oo inta shaqfasha ku wata kaagiyad wadata warniyahow waxaad wada kana ka saxan hadaa tiraahdo ma ka yeelaayo quraanna waa la iskala tagay nin walba asaa wax qorta. haddii quraanka lagu dhaqmaayo waa la kala heri lahay ilaa asiga waxna lagu dari ma kara waxna lagama dhimi kara. laakiin carabtaana inta la aado nin walba asigoo wixiisa gudguduudkiisa wato ku imaaha. marka yaamaan aniga marka midowga maxkamadaha amba ICU ayaan marka wada xaajood kula galnay meesha la yiraahdo anagoo dawladii hore Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariistay aan Suudaan wada xaajood ku galan. markaan ku galna marka waxaana wata marka anaga hormood noo ahaa Shariif Xasan gudoomiyihii baarlamaanka. أنا نبت كينا هميل نو فديستونير نمان كان يعني قوي فهمينا إذن كهيجا عرق على ذينا 6 معلومات 6 أنميل أفادين أو أسيجي يجو أيوة ده هذا لايه أي نوع عداين أو أنك أي دين آيات القرآن أي أحاديث نوجو وذين شريف حسن أونن ماشي أيجو وضان أونن جي كرينا ميل جابن كلي أو كود أنك أنت تاك دباتين كوتا إنك أنت تاك داسك دباتين gacanta markaan taagto marka gacma dheere wasiirka arrimaha gudaha gacma dheere
ayuu markaa uu siiyo asna gacanta iga daba taagday uu siiyo salaad kanaa ka roona uu siiyo kadib in la siiyo ay naqato horta waxaan iri aniga marka waxaan ku dhashay meel la yiraahdo ma haday tuulo miir tuuga la yiraahdo tuuladaas marka madaxweyne maxamed siyaad barraa marka miir taqwa u baxshay asagoo tuugada la diiday markaasaan waxaan iri quraanka miir tuugi iyo ka carabta lagu barta horta hay isdhaamaaneen ama hal mar quraanka miir tuuga la dhageysan meeshaasaan aan horta ka bilaabo markaasaan wax iska celin marka quraanka miir tuuga markaan u akhriyo walaa tulquu bi aydiikum ila tahlukati aali gacmihiina dhibaato ku doonaysiin ay waxay yiraahdeen sababul manzuulku saas ma aha markaasaan waxaan yiri aayadu expire ma aha shalay kuway ku soo degtay waaga dul saaranta kuwii shalayaadna weegtiin doodii markay meeshaas nooga bilaabatay ayaa horta waxaan ka daba tagnay in ay heshiisba la qaada karo ileen raggaana ku jira ma ogtaa raggan oo candagooyaha oo hadda waaga dirira oo dagaalku kaliya inuu socdo rabo oo aan nabad Soomaaliya u rabin ayaa ku dhex jira marka iyaga amar soo baxa meesha ku soo kala taga baydhabaan qabaysayna ay leeyihiin baydhabaan qabsayna wax yaraan oo dhiman ka soo taga ay leeyihiin waxay diideen in heshiis oo laba dhinac oo dhacyo si wax loo qaybsado ay diideen adiga ala kulli xaalin sidii lagu soo kala tagay marka waxaan rabaa diinta inaan ku hormaro oo aan wax yar ka ifiyo cawada idoo culimadu raali iga naqayso ilaa aniga markaan quraanka aan fasirayo ya ayyuhalladina aamanu taqullaha kama bilaabo maxaa yeelay culimada dhan ogoltaas culimadu waxay qaarkeed dhihi weeyeen wax argagixisada u daranay sheegi weeyeen marka positionkaas inaad qaadato waay adigu kii kale iyaga wadeen si ay meelahaas oo ayna iyagu dhihi karin aad adigu dadweynaha u dareensiiso marka mid oo ahay abgaalaha wuxuu yiri America soo aaday warniyow dalkaaga ma joogtida xad kale tagay meesha dhaxamaal lagu sheegay meesha aadan guri u baahnayn oo banaanka iska seexan karto xakaawada Soomaaliya anigu waa fiirshoon weyla daaqaysa waraabe wari maysa iga soo wad waayo hadii weynu ay waraab la daaqayso ilaa wuxuu aragiyay shabaabkii oo la soo dhaweeyay oo argagaxisada diinay wadaan la leeyahay wixii uu aragiyay marka wuxuu yiri kuwaan waraabay la daaqayaan waana dhimaayaan yaani soo agdhiman weyla daaqaysa waraabe ha wari maysa iga soo wad waayo ana waa ka tagay maxaa yeelay weyshaas in waraabu cuna waa caddahu waraabuhuna moogta waa argagaxisada marka diinka marka la fiiriyo marka aniga marmar waxaan iraahdaa dadku indhahay taagaane waxaan iraahdaa islaamku saddex waay islaamka hal waay ay ku dhahayaan ma ogtaa saddex waay kuwa waxa waaye wasaabiquna alawwaluna min almuhaajiriin kuwa nabi maxamed la haajiray oo Makka ka tagay oo inta baxay oo Sayyid Abubakar ugu horeeyay kuwi koobaad waayo haajirka u dhaqtan wal ansaarina waxa waaye kuwi Madiina loogu tagayo welcome iyaga yiriyo soo dhaweeyay
laba sawmaan ka takoori ayad quraana waay waxaan akhraa ninkii wax ka bedeli kara waa sheegi doonaa marka wasaabiquuna alawwaluuna min almuhaajiriina kuwa waay wal ansaari kuwa wal kamiirina waa kuwa madiina loogu tagay والذين تبعوهم أنك واي تابع يلا لكن أنك يجيان رأسنا مركز ستة حدث مركز جوبنا هذه مركز والذين تبعوهم أن اسكول جرنا أول ربعين رسولك إيه أصحابتي إيه أنصارتي للراعو يا أهري والذين تبعوهم واي يا أهري أنا هذا ترصده أدوغ سيدي هذا كهل الدين هذا صلاة علي جل كبلا إلا فقيا واجه رلا بهجر من يريد الله به خير يفقهه في الدين يكو أبتر صلاة هذا فقي لغيرة أو فقي لغيرة وداد أدقى أهري markay sheekh iyo joogto iyo macallin iyo kuwa damba waay waayo fiqiya la dhihi meesha marka waxaad ka arkay ninka la yiraahdo shongolo adoogiisan saaxiib ahayno kubadda jawhar oo ka ciyaari jiray ninka madaxda u ahaa marka fuaada asiga la yiraahdo shongolo intuu diin ka heli haddii loo abtiriyo fuaad shongolo meeshow asuu abtirsigiisa oo fiqi ka hela amba shiiq ka hela la arki ma waxaa kuu soo hira cali dheere علي محمود علي وحى سال يرى واركته ميل وشيخ كسو جلا ما اركته هلك أسر يا وحال يرى أحمد هو هاي أحمد ديريا ليرى أدوغي سواء قام باجمال واي وحو كل شيء أنا أركي جرى وحنكو أركي جرى شباب مركي قلا في مستحيل ميلون دحيسه أو باربا جمال يرى هو كل شيء سو فهم ميزي رجعني مضاد يكون صعداني وحديني هي وطن من مركب من كاسو صعده رجع صو صعده دينا ودناله dadki soo dhaweeyay ma waalan masayaga waa dadka soo dhaweeyay واي هرت دباتادو ورني ودو انت الدين ككنت غورما ادوغا دين هلا انتاد كسو براتاي ماله فؤاد شنقول وحو جوغي جيري كنيسه او ku taalo in xoo ahay meesha la yiraahdo Sweden oo fayl ugu jiri badar soo uga hel marka ninka saasahay oo kaniisad oo jiri fayl إنه أنت كنيسة كصوفة شلما أو أنت ضلك جاي ماذا أديك كوجو جابيو أنا أدير عقل مية وحاس إلى هذا كل هالشيء وحاس واي وح أنا شرفتين يا كرامدين من الأوقات دعاء سو لا يعمني من يصل يعاود مني مركزي درسك كوجو دراية حرير كي يكو قادة إثيوبيا كدولة إثيوبيا مركز كدولة koox Soomaaliyeed oo argagaxisaha xidka ka soo gudubtay xiriirkaas adoo ku saameeya iyaga ka turjuma Kenya galay Djibouti galay iyaga marka ka wakiila asa siyaasadii adiga aku jadwal gareeyahay waxaas marka inaan horta ساس وأرجنا لربع دينكو والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار نكاد أوجه الرئيس أدوجا أوجه الرئيس أديجا كأرئيس